Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamayaa daawadayaal meelba aad dunida ka joogtaan. Halkani waa Elias Online. Barnaamijkeeni waxa aynu ku soo qaadan doonaa nin u dhaqdhaqaaqo qowmiyadda Oromada ee waddankaasi Itoobiya oo lagu magacaabo Jawaar Mohammed ayaa waxa uu si toos ah ula hadlay Soomaalida gobolka Soomaalida ee Itoobiya. Jawaar Mohammed ayaa sheegay in Soomaalidu aynan la soo aadin khilaafka dhexdooda yaala ayna ku xalistaan arrimahooda gobolka Soomaalida Itoobiya ayna Oromada la soo aadin waana xaq dastuuri ay ayagu u leeyihiin ayuu hadalkiisa raacay mar uu ka hadlayay munaasabad loogu qabtay magaalada Minnesota ee waddankaasi Mareykanka. Jawaar Mohammed oo ka mid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa qowmiyadda Oromada ee Itoobiya isla markaana ka mid ahaa dadkii horkacayay dibadbaxyadii Itoobiya ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda gobolka Soomaalida Itoobiya. Jawaar ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka gobolka Soomaalida ay arrimaha gudaha ah ay iyagu xaliyaan oo aysan meel kale la aadin. Mr. Jawaar Mohammed ayaa ka hadlayay kulan ay lahaayeen qowmiyadda Itoobiya ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay in dhinacyada isku haya siyaasadda gobolka Soomaalidu ay wada fariistaan oo ay awoodda qaybsadaan sida uu hadalka u dhigay. Waxaan ku boorinayaa walaalaheena Soomaaliyeed arrimaha gudihiina ah hala soo aadina Oromada meelna arrimihiina ha geynina. Midnimada Soomaalida waa xuquuq ay Soomaalidu leeyihiin. Inagu waxaan nahay walaalihiin laakiin banaanka ayaan ka joognaa arrimaha Soomaalida quseeya. Waan idin iman karnaa oo idin dhexdhexaadin karnaa haddii aad nagu casuuntaan, balse waanadaydu waxay tahay dhibaatadiina ha ku xalinina meel ka baxsan gobolka Soomaalida ee waddanka Itoobiya ayuu hadalkiisii sii raaciyay. Jawaar Mohammed ayaa si gaar ah ula hadlay jabhadda ONLF iyo madaxweynaha deegaanka oo ugu baaqay in halka ka raadiyaan wada xaajood iyo wada tashi. Wada fariista waxa aan arrintan ku boorinayaa hoggaanka ONLF iyo Mustafa iyo qof walba oo kale. Wada fariista oo dhisa gole waxaad leedihiin odayaal xikmad iyo aqoon leh oo aan anigu garanayo. Waxay gacan naga siiyeen in aan joojino dhiiggii ugu badnaa ee daata. Waxay odayaasha gacan idinku siin karaan in aad awood qaybsataan. Waxaa muddo 20 sano idin xukumayay Cabdi Maxamed Cumar oo maanta xabsi ku jiro. Sidee markaasi idinku oo dimuqraadiyadda u soo dagaalamay muddo badan aadan isu imaan karin oo aad awoodda u qaybsan karin, ayuu intaasi ku daray mar uu ka hadlayay shir ay isugu yimaadeen qowmiyadda iyo dadka loo muslimiin ee qowmiyad kale ka soo jeeda waddanka Itoobiya ee ku sugan dalkaasi Mareykanka. Mr. Jawaar ayaa sidoo kale sheegay in gobolka uu gacanta u geli jiray shakhsiyaad, balse iminka dhaqaalahaas uu bulshada dhexdeeda yaalo isla markaana ay tahay
in lagu heshiiyo oo uu ula jeedo gobolka Soomaali galbeed ee wadankaasi Ethiopia ay haysato. qiyaastii 60% ilaa iyo 70% miisaaniyadda deegaanka Soomaalidu waxay aadi jirtay jeebka generaalada EPRDF-ta. maantase dhaqaalahaas gudaha ayuu yaalaa, qaybsada ee ha ku dagaalamina, ayuu yiri Mr. Jawaar Mohammed. Mr. Jawaar Mohammed ayaa sheegay in dhulka Soomaalidu Ethiopia uu yahay dhul qani ah, balse musuqmaasuq iyo maamul xumo ay ku habsatay, asagoo ula jeeday maamulkii ugu dheeraa ee abid soo xukuumad ba'an ka geysta dhulka Soomaalida ee wadanka Ethiopia ama Ethiopia haysato. marka aan yaraa waxaan maqli jiray in gobolka Soomaalidu uu yahay mid qaleel ah oo dhul saxaro ah. marka aan hadda eegana waa mid ka mid ah dhulka ugu qanisan. macluusha iyo abaarta ka jirta gobolka Soomaalidu waa mid ka mid ah musuqmaasuqa iyo maamul xumada ay ragaadiyeen maamuladii kala duwan ee soo xukumayay gobolka Soomaalida Ethiopia, ayuu hadalkiisa raaciyay. Jawaar Mohammed ayaa sheegay in qowmiyadda Oromada aysan soo faragelin doonin siyaasadda gudaha gobolka Soomaalidu Ethiopia, isla markaana ay arintani u taalo hoggaanka kala duwan ee Soomaalida, ayuu yiri. waxa aan ku waaninayaa walaalaheena Soomaaliyeed waa dhammaantood qabiilada kala duwan, anaga hanoo imaanina ee wada fariista, dood wada yeesha, waana taa waxa aan anagu sameynay, wayna noo shaqaysay. marka idinkana aamina way idin shaqaynaysaa, ayuu hadalkiisa raaciyay. haddii aad dad kale aadaan, kooxaha kale xitaa way idinka faa'iidaysanayaan, wayna idin qaybinayaan oo idin xukumayaan, dadkuna way isku kiina dirayaan, ayuu intaa ku daray. Jawaar Mohammed ayaa lagu tilmaamaa ninka ugu saameynta badan siyaasadda gudaha wadanka Ethiopia, waana ninkii bilaabay in kacdoon uu ka dhaco dalkaasi, xukunka wadankaasina uu gacanta u galo Oromada oo lagu qiyaaso tiro ahaan dadka ugu badan qowmiyadaha kala duwan ee ku nool wadanka Ethiopia ay yihiin ilaa iyo 40 milyan. Jawaar Mohammed ayaa sheegay in ayn Soomaalidu aynan ahayn cadowgeennii, laakiin ay yihiin dad walaalahayna, sida uu hadalka u dhigay mar uu la hadlayay dad xaflad ay asagu u qabteen mar uu ka hadlayay magaalada Minneapolis ee wadankaasi Mareykanka. waxaa sidoo kale uu farta ku fiiqay in midnimada Soomaalidu ay ku jirto in arrimahoodu ay iyagu xalistaan. midnimada Soomaalidu waxaa lagu damaanad qaadi karaa oo keli ah danaha Soomaalida ee gudaha Ethiopia, ayuu yiri, iyo meelo ka baxsan. marka codsigaygu waxa uu yahay ka federaal ahaan iyo ka dimuqraadi ahaan, waxaan idinku garab istaagaynaa doorasho u dhacda xaq iyo xor, balse idin ma faragelinayno, ayuu yiri. arrimaha gudaha Soomaalida iyo arrimaha gudaha Soomaalida iyo Soomaalida inteeda kaleba oo ku nool oo ula jeedo gobolkaasi Soomaali galbeed ee Ethiopia ay haysato, waa kuwa u yaala hoggaanka Soomaalida, ayuu
hadalkiisii intaasi ku diray. Jawaar Maxamed ayaa lagu tilmaamaa ninka ugu saameynta badan waddankaasi Itoobiya kadib markii muddo dheer ay dalkaasi soo xukumayeen qowmiyadda Tigrayda ee muddo dalkaasi soo maamulayay ee uu ka soo jeeday ra'iisul wasaarihii hore geeriyooday Meles Zenawi iyo kii ugu dambeeyay Hailemariam Desalegn. Jawaar Maxamed ayaa hadda khilaaf kala dhexeeya dowladda waddanka Itoobiya, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha imika talada haya Abiy Ahmed oo uu ahaa ama ay wada ahaayeen dad isu dhow amba isku xisbi ah eena dhaqdhaqaaqii iyo mudaharaadkii ka socday waddanka Itoobiya ka dhacay ee uu asaga sameeyay oo amba uu ka dambeeyay maadaama TV ka madax banaan TVyada ka soo baxa waddanka Itoobiya uu dibadda ka aasaasay ayna baahin jireen waxyaabo lid ku ah dowladda waddankaasi Itoobiya ee xukunkii adkaa xisbigii Tigrayda. maantase waxaa jirta khilaaf u dhexeeya asaga iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayna isku xisbi ahaan jireen ayaa maanta waxa ay keentay in ay kala fogaadaan guud ahaanba. Jawaar Maxamed ayaa uu sheegay in loo dhigay shirqool lagu dil rabay, laakiin hadda ay u suurgashay inuu Itoobiya ka baxo uuna ku laabto waddankaasi Mareykanka. halka ayaa kusoo gabagabeynayna barnaamijka ku saabsanaa ninka u dhaqdhaqaaqa qowmiyadda oromada waddanka Itoobiya oo Soomaalida la hadlay ayaa soo jeediyey in guud ahaanba Soomaalida ay arrimahoodii ayagoo xalistaan aynan meel kale la aadin sida uu hadalka u dhigay. barnaamijku waxaa idin socodsiinaya anigoo ah Geelo waa 17 bisha 11 2019 tan iyo ismaqal dambe oo xiise leh waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabad gelyo.